habeen wanaagsan daawadayaal qodobada ugu waaweyn ee aad barnaamijkan ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya xiisadii qoorqoor iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo mar kale dib u qaraxday iyo taliyihii uu qoorqoor u magacaabay maamulka Galmudug inuu hogaamiyo dhinaca booliiska oo dowladda Soomaaliya ay ugu yeertay Muqdisho isla markaana diiday inuu wareejiyo xilkii loo magacaabay. haddaba daawadayaal muuqaalka waxaynu idinkugu soo gudbinaynaa tallaabooyinka ay qaaday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xilligan yihiin siyaasiyiinta gadaal ka riixaya in qoorqoor cadaadis siyaasadeed oo xoogan imika la saaro. xagee ku sugan yahay madaxweynihii maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor tallaabooyinka dowladda federaalka ah amarada ay dul dhigtay saraakiisha ciidamada ee maamulka Galmudug. waxaan daawadayaal muuqaalka idinkugu soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale waxyaabaha ku soo kordhay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan tan Galmudug iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. sidoo kale daawadayaal barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo berri ku soo wajahan magaalada Muqdisho. maxuu Saciid Dani Muqdisho ka soo doonayaa xogta safarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaan sidoo kale daawadayaal muuqaalkan idinkugu soo gudbinayaa. qodobadaas iyo waxyaabaha kale ee nagu soo kordha ayaadna ku daawan doontaan barnaamijkeena habeennimo. saaxiibayaal inta aanan barnaamijka u gudagelin aragtiyadiina dhinaca faallada inoogu reeba soo dhawaada saaxiibayaal. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa amarro culus dul dhigtay saraakiisha ciidamada ee maamulka Galmudug ee ku sugan deegaanada maamulkaas iyada oo sidoo kale maanta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya taliyihii ay magacawday uu si rasmi ah xilka ula wareegay. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sareeyo Guuto Cismaan Cabdullaahi Maxamed Kaniif oo ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay taliyaha cusub ee qaybta booliiska ee Galmudug gaashaanle sare Maxamed Daahir Cabdulle ayaa amar siiyay saraakiisha iyo ciidamada booliiska ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi xilli ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo culus oo u dhaxaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. munaasabadda waxaa sidoo kale maanta ka baaqday oo gabi ahaan aan imaan diidayna inuu xilka wareejiyo taliyihii uu Qoorqoor xilka hore ugu magacaabay gaashaanle sare Khaliif Cabdulle Maalin oo markaa isagu la saftay madaxweyne Qoorqoor diidayna amarka markaa dib ay ugu soo magacaawday dowladda. waxayna taasi keentay inuu xilka maanta wareejiyo mid ka mid ah saraakiisha booliiska ee maamulkaasi markaa ka howlgalay. taliye Kaniif oo goobta ka hadlay ayaa faray dhammaan saraakiisha ciidamada inay si buuxda ula shaqeeyaan taliye Maxamed Daahir ayna u hoggaansamaan amaradiisa taas oo imaanaysa markaa toos uga imaanaysa dhinaca dhanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. tani waxay si toos ah banaanka u keentay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya qorshaheedii inuu dhaqangal noqday isla markaana hadda wixii ka dambeeya dhinaca ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska ay gacanta ku hayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Qoorqoorna lagala wareegay taliyihii uu magacaabayna looga yeeray inuu si degdeg ah u yimaado magaalada Muqdisho. sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska ayaa si adag ugu adkeeyay ciidamada inay xoojiyaan waa taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska inay xoojiyaan wada shaqaynta ay la leeyihiin hay'adaha ammaanka. taliyaha cusub taliye Kaniif ayaana si weyn ugu adkeystay ama isku markaa ugu adkeeyay hadalkiisa muhiimadda ay leedahay la shaqaynta taliyaha cusub. xil wareejintan maanta halkan ka dhacday oo lagu soo dhaweynayo taliyaha qaybta waxay qayb ka tahay xafladihii hore saas oo kaleeto ama xil wareejimadii horeeto oo dhici jiray taliyaashii horeeto oo soo xukumi jiray booliiska qaybta Galmudug. waxaan u malaynayaa taliyihii afraad mise shanaad oo xilka halkan kula wareegay. marka taas bay qayb ka tahay booliiska. waxaan rabaa inaan u sheego dhammaantiin inaad isbeddelka cusub oo loo soo sameeyay oo taliyaha qaybta ah inaad lala shaqeeyo si fiican si shaqada bulshada loo hayaa ay u soo baxdo oo shaqo fiican bulshada dadka shacabka loogu adeego. waa inaad shaqadiina kor u qaadaan, waa inaad sharciga ka shaqaysaan, waa inaad kala dambeynta ka shaqaysaan, waa inaad dadka shacabka ah u kala garsoortaan si cadaalad ah. wax kasta oo ama garaado kasta la wato ama mas'uuliyad kasta la wato haddii cadaaladdu aysan jirin waxba ma jirayaan. wax kasta cadaaladda ka weyn, wax kasta iyo rabitaankana waxaa ka weyn dadka shacabka ah shaqada loo qabanayo baa ka weyn. marka sidii hore loo sheegayo uu nabadoonku ooga hadlay nabadoon Ciise, annaga kaalinta aan leenahay waxay tahay
inaan amniga ka shaqeyno wax kasta waxay ka dambeeyaan amniga amni hadduusan jirin nolol ma jirto amni hadduusan jirin waxbarasho ma jirto amni hadduusan jirin bilic iyo qurux ma jirto wax walba amniga dadka loo dhiibana baad kow ka tihiin iyadoo dhammaan ciidamada halkaan aan kala hadlahay dhammaantood ciidamada qalabka sida magacooda aniga oo ku hadlahay boliis military nabad sugid kulli amnigaas inaan ka shaqeyno oo aan ilaalino dadka shacabka ah waa mas'uuliyaddeedana saaran xaq baa u leenahay dhammaanteen dhinaca kale waddanku dee wuxuu galay oo hadda socda oo la rabaa in laga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ah waxaa laga soo qabtay gobolka banaadir waxay ku dhacday si qurux badan qof kasta oo shacab ah codkiisuu ku ciilbaxay qof cabanahaya iyo xisbi cabanahaya iyo urur cabanahaya iyo mas-uul cabanahayana ma jirin qof walbana wuxuu u soo baxay buu ku qancay taasna waxay ka mid tahay cadaaladda ay ciidamada qalabka sida iyo mas-uuliyiintuba ay ka shaqaynayeen iyo guddi doorasho haddii tahaba shalay waa arkayseen waxay ka dhacda baydhabo soo gabagabowday ayadiina maaragtay ii sheeg wax hadda cabasho oo ka taagan ma leh galmudug iyo hirshabeellana way ka dhacaysaa iyo meelo kaleba meelaha la asteeyo dhan waa ka dhacaysaa mas-uuliyaddanna saaran marka waxay tahay inagoo isku duuban ciidamada qalabka sida ciidamada amniga dadka shacabka dhammaantood inaan ka qayb galno doorashadaas garab istaagno guddiga doorashada lala shaqeeyo baa dhammaanteenna saaran amniga ilaalistiisa iyo dhowristiisana qof kasta oo mas-uul ah ama mid hami ku jira ha ahaado musharax ha ahaado qof xisbi ha ahaado qof kale qof ha ahaado shacaba amniga aan dhammaanteen ilaalino mas-uuliyaddiisa amniga aan uma baahna ka jira galmudug gaar ahaan caasimadda ka jira xasarad uma baahna wuxuu u baahan yahay in si tartiibaho dadka bulshadu ay ku qanacsan tahayo in loo sugo quruxda iyo bilicda iyo dhismaha iyo mashruucyada socdana in la ilaaliyo u baahan yihiin aan la carqaladayn ba u baahan yihiin ayagana iftiin qurux badan baa muuqda iftiinka quruxda badan baan dhinacna ka istaagna haddii ilahaydma sida la sheegay annaga shaqadeenu siyaasad maahan waxay tahay amni weeye amnigana waxaad u sidataan garaado mas-uuliyad baa qaadeen waad u dhaarateen xaquuq baad u qaadataan hadda sida quruxda badanoo laynkugu dhiiba in looga soo baxaa la rabaa haddii ilahaydma dhinaca kale daawadayaal warar kale oo soo baxaya waxay sheegayaan inuu maalinta beritoole ah magaalada muqdisho kusoo wajahan yahay madaxweynihii maamulka puntland siciid cabdulaahi deni xogaha la helayo waxay tilmaamayaan in madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ay muqdisho kusoo wajahan yihiin isla markaana uu siciid deni u imaanayo muqdisho si uu uga qayb galo kulan gaar ah oo beesha caalamka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku dhexmari doona magaalada muqdisho xogaha la helayo waxay sheegayaan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni inuu imaan doono muqdisho balse uu ku ekaan doono dhinaca xayndaabka xalane halkaasina uu kula kulmi doono madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka iyo siyaasiyiinta kale kadibna ay la kulmi doonaan beesha caalamka oo halkaas markaa iyagu u imaanaya inay dhexdhexaadiyaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee isku haysta siyaasadda shirka ayaa la sheegay inay ka qayb galayaan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre sidoo kale waxa la sheegay inuu shirka ka qayb gali doono madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni shirka ayaana waxa dhinaca dowladda federaalka uga qayb gali doona laba xubnood oo ah labada xubin ee ugu sareysa sidoo kale mucaaradka ayaa iyaguna waxa uga qayb galaya Siciid Deni iyo sidoo kale Sheekh Shariif qorshaha ayaana wuxuu yahay inuu shirku dhaco maalinta beritoole ah maalinta ku xigta iyadoo shirkan ay markaa shirgudoomin doonaan beesha caalamka halkaasina lagu dhexdhexaadin doono inkastoo warar soo baxaya ay sheegayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay beenisay wararkaas isla markaana ay tilmaantay inay wararkaasi yihiin warar been ah oo aysan waxba ka jirin wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaana si adag u beenisay warar saacadihii la soo dhaafay si weyn loo baahiyay kuwaas oo markaa sheegaya in safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ay martigelin doonto 13 May shir u dhaxeeya mucaaradka iyo dowladda wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaana sheegay inaysan jirin wax faragelin siyaasadeed ah oo safaaradda Mareykanka ay wado isla markaana aanu jirin kulan noocaas oo la qorsheynayo xilligaas
hadalka uu soo qoray ama ay soo qortay wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu ku soo aadayaa dhinaca kale iyadoo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu maalinta berito ah Muqdisho ku soo wajahan yahay. haddaba maxay ka dhigan tahay dhexdhexaadinta beesha caalamka, maxayse ku soo kordhin kartaa xaaladda burugsan ee Soomaaliya iyadoo dhinaca kale xubnaha mucaaradka iyaguna ay si weyn u abaabulayaan barnaamijyo kale oo waaweyn oo ay rabaan inay Muqdisho ku qabtaan isla markaana ay si weyn uga soo horjeedaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. daawadayaal barnaamijkeennii wararka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. akhyaarta qiimaha badan waa ku mahadsantihiin la socoshada la jaanqaadka wararka iyo barnaamijyada aynu daawadayaasheena halkan kula wadaagno. inta aynu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmaynana waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.